in madaxweynaha dalka Soomaaliya uu imaado magaalada Hargeysa? waxaan u arkaa si fiican waa dalkiisii waa magaaladii madaxdii labaad ee Hargeysa imanaya waan ku soo dhaweynaynaa waa madaxweynaheeni Farmaajo iyo Abiy Ahmed waa madaxweyne jaarkeena marka isagu waa nin wadankiisii Hargeysa yimiday Abiy Ahmed ku soo dhaweynaa Hargeysa iyo Muqdisho waa dalkiisii hadduu yimaadana waa dalkiisii una iman karaa barina u imanaya weligiina uu imanaya waxa walaal adu seedo aragtaa in madaxweynaha dalka Soomaaliya lagu soo dhaweeyo magaalada Hargeysa waxay waa boon Maxamed Siilci anigu waxaan u arkaa inaan wax suuragal ah ahayn way laba dalbaynu naayde duu isagoo qof Soomaaliya uu inoo imanayo ma sheegin anigu gobolka Awdal hadaa fikirka ka dhiibto imaashiyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan u arkaa mid aad iyo aad loogu baahan yahay sababtoo ah haddii aan iyar ka soo qaato hay'adkii ahaa Xasan Daahir Ismaaciil Warsame tiri ilma aan hadal hooyadii haruun ma tiraahdo marka waa hadalka waxa weeyaan wada halkii wax ku jiraan la wada hadlo hadii la wada hadlo waxa imanaya in ama xorriyadeeda hesho ama dib loo midoobo Soomaalidu kama maalanto in midoobo wax wada qabso marka imaashiyaha madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Soomaaliya Hargeysa aad iyo aad u bogaadina soo dhaweyn wal ku soo dhawow bal aragtidaada ku aado saad u aragtid in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu imaado Soomaaliland yeenka bismillaahir rahmaanir rahiim wanaag baan u arkaa waa arrin aad fiican inuu yimaado Hargeysa Soomaali xad ma laha aad baan soo dhaweynayaa imaashaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku yimaanaya caasimadda Soomaaliland soo dhaweeyay magaalada Hargeysa yeenka anu waxaan u arkaa in qalad tahay Farmaajo ma iman karo Soomaaliland waayo wuxuu xukumaa Muqdisho xukumaa miyuu ugu dambeeyay waxa la isla dhex magaalada Hargeysa uu imaado madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adigu saad u aragtaa waan soo dhaweynaa madaxweynaha Soomaaliya dhan buu madaxweynaha yahay waa madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa waxaan u arkaa madaxweynaha Farmaajo waa wadan Soomaaliyeed dadkuna waa dad Soomaaliyeed madaxweynayaashuna waa wada Soomaali muusana cod baa lagu doortay Farmaajona cod baa lagu doortay madaxweynaha waxaan deeleeyahay inay gartaan dantooda haday Soomaali ay heshiisana alxamdulillah inay danteeda garataa wanaagsan in ay danahooga ka shaqeeyaan oo dad u dhaxaynin baa ka sii qurux badnayd way wala aragtidaada ku aadan in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abiy Ahmed lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa saad u aragtaa shukriya Cabdullaahi aad baan maasanta runta waxaan u arkaa arrin weyn oo muhiim u ah Soomaaliland hadduu Farmaajo imanayo Soomaaliland imanayo waa markii ugu horeysay taariikhda madaxweynaha Soomaaliyeed uu yimaado Hargeysa waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaare Itoobiya yimaado dal ka baxsan Itoobiya oo Soomaaliland runta la aqoonsaneyn halkaasi chance bay u tahay Soomaaliland imaashaha labada madaxweyne iyo ra'iisul wasaare runtii maqaalkiina aad u sareynaya wallaahi waxaan u arkaa anigu wax weyn oo u qabsamay ummadda Soomaaliyeed horta Soomaaliya sidaba Soomaali baa iska leh waana madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo farxad baan ugu soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha Soomaaliya inuu yimaado magaalada Hargeysa sideed u aragtidaada ku aadan maalmihii ugu dambeeyay waxa la hadalhayay in dalka Soomaaliland lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aragtidaada sideed u aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd hada su'aasha ay weydiisay adeer waxaan u arkaa dawladda Soomaaliland waxa u fiican inay soo dhaweyso madaxweynaha Soomaaliya because waxa weeye Ingiriiska iyo Talyaaniga way soo dhaweeyaan walaba wadan oo jaar baan nahay haddaan wax iska tabanayno oo iyo wax kasta waa inaan miiska ku dhameysano waa inaan insha Allah taala u sheegno waxaan ka doonayno runtii haddaan dareenkii ama raayigayga aan waxa weeyaan cabiro soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yimaado waxa weeyaan Hargeysa caasimadda Soomaaliland runtii waxay tahay waa soo dhaweyn dadkan kala roobay
shacabkan ummaddan la soo dhaweyna runtii waxaan u arkaa waa arrin wanaagsan. waxaan leeyahay muuse biixota uu ka baraysiiyey go'aankiisii fiicnaa uu galay inuu madaxweynaha Soomaaliya ku soo dhaweeyo Soomaaliland. ummadda shacabka Soomaalilandna aad bay ugu hambalyeynaysaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. arinta farmaajo haddii aan ka hadlo kulley farmaajo waxa weeyaan madaxweyne waxa qaran weeyaan. Soomaaliland haddii uu farmaajo imaadana waxaana ma soo kordhin karo waxaan taqa kuma beerin karo laakiin waa laba waxa weeyaan wadan oo saaxiibo weeyaan. barakaatu dhammaan horta shacabweynaha gobolka Awdal waan salaaminaa. horta maanta su'aashu waxa weeye madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu waa madaxweyne qaran waa madaxweyne Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawow wadankaagii dalkaagii.